آيات 13 ee suurat al-Hujurat waxa ay ka hadlaysaa in bini aadamka Ilaahay ka abuuray lab iyo dhadig kana dhigay quruumo iyo qabaa'il si ay isugu gartaan kan Ilaahay agtiisa ugu karaamada badan uu yahay kan ugu taqwada badan. Aayadaasi waa aayad aad loo soo daliishado bini aadamka oo dhan, muslim iyo gaal, cadaan iyo madow, carab iyo cajam, markii laga hadlayo sinaanta bini aadamka iyo in aan dhalasho lagu kala sarreyn. Laakiin Soomaali haddii aan nahay waxa kaliya oo aan ka fahnay ayaa ah kelimada litacaarafu in aad isku garataan. Waa kelimad inta badan ay dadku qiil ugu bixiyaan qabyaalada. Tusaale ahaan markii qofku uu doonayo in uu ka hadlo wax qabyaalad ku saabsan una qiyaasiyo in ay yihiin wax ceeba waxaas oo laga yaabo in lala yaabo ayuu daliishadaa oo yiraahdaa qabiilku waa litacaarafu wax dhibo ma leh, reer hebel waa saas. Soomaali haddii aan nahay qabyaalada waa nalagu yaqaanaa, laakiin in qabyaalada qiil loo baxsho oo aayad loo daliishado waa wax cusub, waana wax waayahan aad u soo batay xataa dadka caamada ah dhexdooda. haddaba litacaarafu maxaa lagala jeedaa, maxaa laga wadaa? Litacaarafu waxa aan u fahnay in laga wado inaad isku garataan midka laandheeraha ah iyo midka laangaabka ah, kan dadkiisu hubaysan yihiin iyo kan aan dadkiisu hubaysnayn, kan bilista ah iyo kan boonta lagu sheegay, kan cadaawada soo jireenka ay idinka dhexayso iyo kan kale. litacaarafu waxaan u fahnay in laga wado in aad isku garataan kan awowgiis dilay iyo kan kale, kan dakanada hore idinka dhexayso iyo midka kale. laga yaabay dadka qaar inay u fahmeen litacaarafu in lagu garto midka baarlamaanka kuraas badan ku leh iyo kan kale, kan foorta ah iyo kan 0.5ka ah, kan aarsan kara iyo kan looma ooyaanka lagu sheegay. haddaba maxaa lagala jeedaa litacaarafu ama in aad isku garataan? waan u geli doonaa waxa ay culummada ka yiraahdeen, laakiin arrinta cajiibta ah ayaa ah maxaan ku jecelnahay kaliya erayga ah litacaarafu, maxaanan u doonayn in aan aayadda hore ka soo bilaawno ama aanba hore u sii wadno oo ka hadalno waxa ay aayaddu ka hadlayso oo ah karaamada iyo taqwada, ama maxaanan hore ugu sii wadin oo aayadda ku sii xigta aanan u akhrin aayaddaas oo ka hadlaysa dad reer baadiye ah oo iimaan sheegta laakiin la yiri iimaanku qalbigiisa ma uusan gelin. ka fikir bartaas, dad reer baadiye ah oo iimaan sheegtay laakiin iimaanku uusan qalbigiisa gelin oo lagu yiri mu'miniin ma tihiin. maxaanan u doonayn in aan hal tilaabo gadaal u baxno oo aayadda ka horeysa ka soo bilaawno aayaddaas oo ka hadlaysa xumaanta tuhmada, sidoo kale ka hadlaysa in aan qofka aybihiisa la baarbaarin, aayaddaas oo ka hadlaysa xanta oo annaga agteena caadi ka ah, lana ogyahay xantu in ay tahay qofku wax uu dhibsanayo oo aad ka sheegto, ha joogo ama yuusa joogin, ha maqlo ama yuusa maqlin, qofka oo muuqaalkiisa wax laga sheego ama sifooyinkiisa wax laga sheego, xifaalada, dacaayadda oo aayaddu ay leedahay xantu waxa ay la mid tahay adiga oo qofka walaalka ah oo dhintay hilibkiisa cunay. ka waran sida aan litacaarafu ugu soo celcelino haddii aan ugu soo celcelinno aayadda kasii dambaysa ee 11aad oo ka hadlaysa in aan laisliidin, qoomna in uusa qoom liidin, dumarna dumar liidin. arrintaas oo ah lidka waxyaabaha aan u daliishano litacaarafu, kana laangaab ah, kana laandheer ah, kana boon ah, kana bilis ah, aan wax caddeyna loo hayn, kana dhalad ah, kana sheegato ah. aayadda waxa ay ka hadlaysaa oo kale in lays aabeeyo, in lays dhaleeceeyo. waxa kale oo ay ka hadlaysaa waxa ugu daran oo Soomaalidu ay caanka ku tahay, taas oo ah naanisyaha xuxun. mana u malaynayo in ay jirto adduunka cid nooga horeysa dhanka naanisyaha xuxun. aayadda waxa ay ku tilmaamaysaa naanisyaha xuxun fisqi iyo dulmi. haddii aan rabno tilaabo gadal waa usii qaadi karnaa oo aayadda 10aad waxa ay ka hadlaysaa in dadka islaax la dhex dhigo, laakiin annaga islaaxa waxaa noogu fudud in laysku diro dadka. aayadda waxa ay ka hadlaysaa in mu'miniinta dhamme ay yihiin walaalo, laakiin waxaas oo aayado isdaba yaalla oo ah amar iyo nahyi waxa aan kala baxnay litacaarafu. haddaba maxaa lagala jeedaa litacaarafu in aad isku garataan? maxaa laysu garanayaa haddii aan laysu garanayn waxyaabihii hore aan usoo sheegnay? waxaa laysu baranayaa in lays xiriiriyo qaraabada iyo raximka, in aad isku garataan cidda aad isguursan kartaan iyo cidda aadna isguursan karin, cidda aad isdhexli kartaan iyo cidda aadna isdhexli karin, cidda diyadaada qaadanaysa iyo cidda kale, in abtirsiinada iyo nasabka la ilaaliyo, in wax laysku taro aan waxba laysugu dhibin. laakiin Soomaalidu waxa ay dhahdaa qof meel uu caddahay meeli ka madow, qof xumaan uu caddahay wanaag ma arkayo.